إلهي وحينا سي سبحانه وتعالى maskaxdani aad bay u yartay jidhkeena marka lagu miisaamo bay yiraahdaan waa 2.5% wasniga jidhka ay yiraahdaan waa 1330 gram meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo xogaa yar weeyaa maskaxda kugu jirta haweenkana bay yiraahdaan rag 40 gram buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 gram bay ka miisaan yariyeen maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta halaali waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya ah maskaxda inugu jirta waxay yiraahdaan 22 decimeter decimeter ka taqaanay centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leeyahay somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yiraahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta leegaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka mid waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan مثلا أحد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم من علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كسته 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كسته 10 شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقصي هل كان بالنسبة لحدا سكنه سكند كسته أما ثانية كسته أو كم إذا نلاش قفكه هدي الله شيء قبوا لي 10 شيء 10 معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات الله جوه habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حساب في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mu'aalaja ku sameyn karta yani computer dunida yalla saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyeen 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyeen iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyeen inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan ahad ulama baa wuxuu leeyahay haddii buu yiri dunida waxa TV iyo telefisyon iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala haddii inta la yareeyo buu yiri aqli bini aadamka kala loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa laaliyo waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayuu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلديسي وحي سادو اسكو خدخدو كمبيوتر aad tiraado maskaxdan yar adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu leeyahay taayada reeba يعني برنامج ku shaqeyn laha inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meesha yaala wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin